Dowladda dalka Turkiga ayaa ku dhawaaqday inay ciidamadeeda badda iyo maraakiibteeda shidaalka baara iyo macdanta inay u dirayso dalka Soomaaliya xeebihiisa iyo Geeska Afrika. Dowladda Turkiga diritaankeeda ciidamadeeda ayaa kadib yimid markii labada waddan ay kala saxiixdeen wasiiradooda difaaca heshiis u oggolaanaya Turkiga inuu xeebaha Soomaaliya shidaal iyo macdan ka baaro xeebaha Soomaaliyana ilaaliyo. Tan iyo markii Itoobiya ay damaacday qaybo ka mid ah xeebaha Soomaaliya, ayaa Turkiga iyo Soomaaliya waxay sii kordhiyeen ciidamada, tababaridda iyo saanadda ciidamada Soomaaliya la siinayo, walow Turkigu uu sidoo kale heshiis ganacsi kula jiro dowladda Itoobiya. Itoobiya ayaa in badan damaacday xeebaha Soomaaliya oo ay ku doonayso inay qabsato Badda Cas kadib heshiiskii ay la gashay maamulka Somalilan. Ciidamada Turkiga ayaa hadda lagu soo waramayaa inay gaareen Geeska Afrika, gaar ahaan xeebaha Djibouti ilaa Badda Cas inay gaareen.